أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalkayga kusoo dhawaada taariikhda Suleymaan Alqaanuuni qaybteeda labaad. Waxaan filayaa inaad qaybtii hore aad macluumaad badan ka ogaateen iyo sida uu Suleymaan Alqaanuuni uu xilka ula wareegay. Markaana waxaan sii ambaqaadaynaa qaybta labaad. Aan isla fiirino bal maalmihii ugu horeeyay ama sanadii ugu horeeyay markuu xilka qabsaday Suleymaan Alqaanuuni maxaa dhacay. qaybtii hore waxay noo joogtay Suleymaan oo Istanbul imaaday oo boqor noqday. xaaladdu markii halkaas maraysay marka Suleymaan hal maalin uu boqor haayo baa maalintii labaad aabiis oo mid la keenay. waayo waxaa laga baqay nimankii kishaarinta la yiraahdo markii boqor uu rabo inuu boqor kale xilka la wareego mudaharaadii kacdoon ay sameyn jireen iyagoo laga baqay nimankaas ayaa kaartadan la sameeyay. Suleymaan markuu xilka la wareegay waxa uu jiray 26 sano. waxa uu xilka la wareegay 1520kii. maalmihii ugu horeeyay oo xilka la wareegay waxaa soo baxday dad doonayay inay ka taqalusaan maamulkiisa in ayna burburiyaan dowladda Cuthmaaniyiinta. afar kacdoon buu wajahay Suleymaan Alqaanuuni waqtigiisa ugu horeeyay ee dowladnimada. laakiin dadku sidii u maleynayeen iyo sidii asagu u ahaay laba arrin oo farqi u dhaxeeya ay kala ahaayeen. dadku waxay u maleynayeen in wiilkaanu yahay wiil da'yar ah oo maamul si fiican u kasaynin habka wax loo hogaamiyo aan aqoonin. waxay istusiyeen fursad ah dowladda Cuthmaaniyiinta inay kaga taqalusi karaan. laakiin taas cagsigeeda isna wuxuu ahaa nin aabiis uu soo tarbiyeeyay dhan diiniyan iyo dhan maadiyanba si fiican loo soo baray qaanuunka u degsan dowladda Cuthmaaniyiinta iyo sida wax loo maamulo. afartii kacdoon ee lagu soo qaaday markuu ka taqalusay baa waxaa la ogaaday ninka xilka haya inuu yahay nin shujaac ah oo geesi ah. dad badan oo hore u soo socdayna gadaal bay u laabteen. kacdoonkii koowaad waxaa qaaday nin la oran jiray Jambaras Qasali. Jambaras Qasali waxa uu ahaa gudoomiyihii Sham. waxa uu ka soo horjeestay kuna dhawaaqay inuu dagaal ku qaado dowladda Cuthmaaniyiinta. wuxuu rabay inuu qabsado magaalada Xalab la yiraahdo laakiin wuu ku fashilmay. dagaal baa lagu qaaday waa la soo dilay madaxiisa Istanbul baa la keenay si loogu waana qaato. kacdoonkii labaad waxaa waday nin la oran jiray Ahmed Basha. Ahmed Basha markuu Suleymaan Alqaanuuni uu xilka la wareegay waxaa loo soo bandhigay mas'uuliyad ah inuu qaado oo markaas la oran jiray Sadrul Aqdam. Sadrul Aqdam xilligan Soomaaliya markaan qiimeyno waxay u dhigan jirtay ra'iisul wasaarenimo. marka wuu diiday, wuxuu yiri ha laga dhigo gudoomiyaha Masar. waa loo yeelay Masar baa gudoomiyaha looga dhigay. Masar uu tagay. markuu meeshii tagay wuxuu ku dhawaaqay inuu dowladda Cuthmaaniyiinta ka soo horjeesto boqor isku magacaabay. isna si lamid ah dagaal lagu qaaday waa la soo dilay madaxiisana Istanbul baa la keenay. kacdoonkii saddexaad waxaa waday nin la oran jiray Baabuduun. Baabuduun wuxuu ahaa nin Shiici ah. taageero 300 gaaraya ilaa 400 ayuu isku distay. kadibna mudaharaadii iyo kacdoono ayuu ku sameeyay dowladda Cuthmaaniyiinta. isna si lamid ah labadii hore ayaa loo soo dilay madaxiisa Istanbul baa la keenay. kacdoonkii afraad waxaa waday nin la oran jiray Qalandar Jalabi. Qalandar Jalabi isna wuxuu ahaa nin Shiici ah laakiin ninkan wuxuu watay taageero gaaraysa 30,000 ilaa 40,000.
dad badan u laayay oo muslimiin ah, weliba gobolada Konya iyo Markash labada gobol la kala yiraahdo dadkii jooga u laayay. heer wuxuu gaaray inuu dowladda Cuthmaaniyiinta ka taqaluso, laakiin ugu dambeyn kaarta ayaa loo degay. kaartadaas oo ah Axmed Baasha xilku iska diiday oo ahaa Sadrul Aqdam, waxaa qaatay Ibrahim Baasha in la yiraahdo ayaa xilkaas la wareegay. kadib markii Ibrahim wuxuu sameeyay taageerayaashii ninkan wuxuu ku sameeyay inuu soo jiito. ugu dambeyn markaa ninkan wuxuu ku soo haray taageero la'aan, isna si tartiib ah ayaa loo dilay. Suleymaan marka afartaas kacdoon markuu iska xaliyay kadib marka Yurub oo dhan wuxuu u dejiyay qorshe siyaasadeed. Suleymaan qorshihiisa koowaad wuxuu ka dhigay ku guuleysiga dagaalkii Hungary ama dagaalkii Majar iyo go'doomintii magaalada Vienna. boqorkii Majar ahaana Filisladaafkii labaad waxa uu ku dhawaaqay inuu kasoo horjeesto dowladda Cuthmaaniyiinta. waxa uu burburiyay cahdigii kala dhexeeyay dowladdiisa iyo dowladda Cuthmaaniyiinta, waayo boqorradii isaga ka horeeyay dowladda Cuthmaaniyiinta heshiis la galeen maadaama ay ahaayeen dowlad aad u yar in la nabadgeliyo canshuurna laga qaado. ninkan markuu xilka la wareegay heshiiskii waa burburiyay. Suleymaan Al-Qaanuuni waxa uu soo diray nin canshuur ka qaadi jiray, ninkiina waa uu dilay. Suleymaan arrintii loo soo sheegay, ciidankii uu ka haystay dagaal uu ku qaaday ninkii, boqortooyadiina waa laga taqalusay. markii ninkaas uu dilay 1521 ayuu dagaalka ku qaaday. kuma uusan ekaanin ilaa uu ku guuleystay Suleymaan dagaalkii Muhakas. markuu ku guuleystay Suleymaan waxa uu la wareegay magaalada Buuda la yiraahdo. Buuda la wareegay kadibna wuxuu afka saaray magaalada Vienna, caasimadda Hungary. Vienna markuu la wareegay Suleymaan ma suurta gelin inuu Vienna la wareego, balse go'doomin buu ku qabtay. muddo markuu go'doominayay magaaladii wax baxa iyo wax soo gala intaba la waayay, dadkiina gaajo u dhinteen bay dadkii meesha joogay aqbaleen. Suleymaan si tartiib ah ayaa maamulkiisu meesha u gaaray, dadkiina way adeeceen. Suleymaan qorshihiisa labaad wuxuu ka dhigay inuu dadka muslimiinta ah ee Turkida u furo jasiirad la oran jiray Rhodes. Rhodes waxay ahayd jasiirad waxaa deganaan jiray niman dagaalyahanno ah oo la oran jiray Qasiidul Hana. waxay qashqashaadi jireen, jidgooyin u dhigan jireen muslimiinta Turkida ah ee Xijaas u socda markay soo xajinayaan. 1522 ayuu dagaal ku qaaday, meeshaasna waa uu xoreeyay. dowladda Cuthmaaniyiinta markay awood bay sii yeelatay. dowladihii Yurub markaas ka jira dowladda Cuthmaaniyiinta heshiis bay la galeen. dowladdii Faransa ka jirtay oo hogaaminayay Carlos Kishanaad, dowladda Cuthmaaniyiinta ayuu heshiis la galay. wuxuu tartan kula jiray ninkan boqorkii Roomaanka Carlo Cante la oran jiray. heshiis ganacsi dhan military in canshuur laga qaado buu la galay. kadibna muddo dheer markii heshiiska asiga Cuthmaaniyiinta ka dhaxeeyeen baa waxaa lagu heshiiyey in Carlo Cante weerar lagu qaado doonihiisii xeebta boqorka Cante ee la oran jiray Napoli. dagaal lagu qaaday doonidii waa laga wareegay, boqortooyadiisina saas bay ku burburtay. Suleymaan markaa taariikhdiisu aad bay u dheer tahay. qaybtaan waxaan ugu talagalay in sanadii ugu horeeyay waxyaabihii dhacay 10kii sano ugu horeysay wixii dhacay inaan wax ka sheego. qaybta u dambaysa insha Allah qayb saddexaad waan iska soo gabagabayn doonaa maadaama taariikhdiisu ay aad u dheer tahay Suleymaan Al-Qaanuuni. qaybtaas u dambaysana noloshiisa gaarka ah ayaan ku fiirin doonaa insha Allah. waxaan filayaa labada qaybood inaad wax badan aad ka ogaateen. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaan barnaamij noocan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.